محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي كلن كينن كلن خير قبها كدغو دليرتا قلن جبسي هبلو iyo wiilal bale aynu munaasabadooda farxadda leh ka soo qayb galay ilaahay cilmiga ay barteen ha ku anfaco meel wanaagsan adduun wanaagsan iyo aakhiro wanaagsan ilaahay ha ku gaarsiiyo waalidiintii ku soo tabacday ubadka ee la soo dadaashay ila aantood aanay halkaas soo gaadheena ilaahay ha ka abaaliyo oo ha uga dhigo ubadkii waalidkooda samafalka u sameyn lahaa ee abaalkooda gudi lahaa bari waalidayga ka soo bixi lahaa dhanka kale macallimiinta professorada ardaydaas qalin jabisay wax u soo dhigay in badan oo kamidii ay halkan fadhido badna ay malaha maqan yihiin iyagana salaan qaaliya iyo hambaliyo iyo mahadnaq ayay inaga mudan yihiin iyo ixtiraam si gaar ah ayaan iyagana u salaamayaa gaar ahaan macallimiinta ajnabiga professorada ajnabiga ee meelaha kala duwan ka yimid presidentku inoo sheegay inay meelo kala duwan ka yimaadeen halkaana intoodii badnayd ay fadhiyaan mahad gaara oo weyn ayaynu u celinaynaa waana sumcadda ay jaamacaddu leedahay ee magaceeda iyo aqoonteedaba kor u qaaday iyagana aynu si gaara ugu mahadnaqno si gaarna waan u salaamayaa حديث بو رسولكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كوري قفك عن ضدك هدنقين إلهينا هدنقين حدينو هدنق وينو ضدك ودمدو ذي أغيمد إني أبدكينا يعشورتينا يأرديدين أي وحبران أو يقونتو ذا هلكا قارسيان حدينو هدنق وينو وأينو احترام وينو وأينو شرف وينو inaguna sharaf iyo ixtiraam iyo aqoon yeelan maynay taa la ogaado professorku markuu magacyadooda sheegayay wuxuu ku daray nin David Layla waxaan malaynayaa inaanu joogin Soomaha saaxiib gaar ah noohayn ilaa waqti fog buu joogay Hargeysa iyo Burcaba language-ka Ingiriisku dhigaa ayaan uu ka soo jeedaa nin qiimo badan weeyay isagii xaaskiisu isagoo ilmo yar raan ogaa Hargeysa markii hore joogay Burco imika saddex buu leeyahay saaxiibaan ahay waxa kula talin jiray xilliyada wada ogeydeen dalkeena dhibaatooyin baa ka dhici jiray wada ogeydeen mataanihii lagu dilay sheekh wada ogeydeen qofkii jarmalka ahaa ee halkan toorida wax lagu yeelay waxa soo dhamay saameyn bay ku leeyihiin dadka ajnabiga in la jooga qalbigaan u dajin jiray waxaan u jiray accident weeyaan waxba ku gaari maayaan ha ka baqin waliba xilliyadu burcayimid bay ahayd waan jeclaa David maanta inaan halkan ku arko laakiin saaxiibadiisa kale jooga ayaa si gaar ah u salaamaya oo aan salaanta gaar u gaarsiinaya mahad gaaray runtii inaga mudayeen bal hadda ogaada dadka intaas oo kiiloomitir oo kun u soo safraynay waxna baraan oo ay dhibaato halkan ku gaaraysa ma fiicna iyagana salaan gaar ayaan runtii siinaya waxaan leeyahay Allah ka abaaliyo barkood deena islaamaan baaba suurtagala حتى هدانا إسلامين ديمها كلا دوني إنه إن كسرنا ضد مسلمان هو الله جعلها إسلامك لكن مين هو قصبنا دين إسلامك مين هو قصبنا هو قصب منه لا يكلف الله آية القرآن كهيد لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم حسابته إلهي باسكاله لكن أقونتي إيمانتي إن صينيان أو أين أباهناي أو إن أبدكينا دبدها أجينو مانتا برعية هالجيسية بورمية لاس عنو ذي عرقابو إن أبدكينا لقو برا إن أباهناي وإن نكو احترامنا أو كسور دوينا أو إنه ما حد قال أو نغنا يا نكو ديلانين سيدا وكاله بروفيسور هذا كله الرئيس سومالي لان إتام عده هوش هذا وضع سلام قارة أو قالي أنا قد بنية وحن سلامته قد بني قد ذا قيمة هلا إيه هالكم فردنا وكمدي هاي وديجين أبوين أنت هالكم فردنا محمود آدم ديري وحاج عبد حسين كبرعوي من كوت آدم يلفها مثلا حاج عبد حسين وداهية سومالي لان
waxay dheer tahay Soomaaliya ama ummadaha kale waa Xaaji Cabdi Xuseen wey burcana waxay dheer tahay Somaliland inteeda kale محمود آدميري يا محمد حسين وكذا يا أنا بدي صانس له هي حق الدادة نيجي محمد والله الكبر حلية لي أتكا يسقي محمد حاشي علمي وضدك برعية هالجسر رجل يسوي بكا يسوي ده حاشي قال ده ما هي يسقي هي اللي سيفو بيني حق الدادة وضدك شعل إلى هين أسهلي inay magac iyo taariikh ka tagaan wadad kale aantood aan ummadeen isticlaateen ama aaninaan wax badan gaadhnayn waad ogtiin xilliyada qaarkood marka la murkacado ama ay dhibaato ku gaadho ee niyari intuu geed ka boodu tale ka boodaaye dadka dhalinyarta ama xisaabtaba ha noqdaan ama cid kale ha noqotay ay yaani talada laga boodo cidda ina qabataa waxa Cabdi Xuseen oo kale iyo Maxamed Aadan way iyagana runtii gudida waxaan leeyahay gudidaasi waa gudida gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco horumarka ka samaysmay gaarsiisay way waxaan xasuusanay markaan wasaaradda maaliyadda markaan joogay boqolaal maalmood bay yimaadeen oo danta guud ee gobolka iyo degmada ay ugu yimaadeen markale iyagoo farmarinaya ma soo noqon jirin ilaahay ka abaaliyo wax weyn gobolkan u qabteen una qaban doonaan reer Togdheer iyo jaamacadda Burco ha ku fara adeegto gudida waxa kale oo mahadnaqayaa madaxda sharafta leh wasaaradda waxbarashada ka socota haddii wasiirada iyo DG-ga oo iyagana dadaalkooda iyo hawshooda iyo waxqabadkooda la'aantood wax badan oo xagga waxbarashada ama gobolka jaamacadoodu ay qaybiyeen noqon lahayn anigu wax badan oo dhan maayo hadalka intii badneed waa la yiri aqoontaan jeclaa inaan ka hadlo sida ilaahay quraanka inoogu sheegay meelo badan oo qul rabbi sidni ilma rasuulka maxamed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ilaahay u faray waxa tidaada ya rasuulallah ilaahay oo aqoon ii siyaadi hada rasuulku aqoon buu lahaa oo cilmi buu lahaa oo ilaahay baa baray oo waxyigii baa ku soo dagay oo quraankii baa ku soo dagay hadana ilaahay wuxuu waxaad weydiisataa inaan cilmi ku siyaadiyo inaga la ina baraya inaan aqoontu aanay dhamaan inay aqoontu tahay waxa dadka isdaafiya inay aqoontu tahay waxa dadka heer sare gaarsiiya inay aqoon la'aantu tahay waxa dadka baabiya ee burburiya waxaynu ognahay aayaadkii rasuulka ku soo dagay ugu horeeyay inay ahaayeen iqra bismi rabbika alladhi khalaqa al-insana min 'alaq iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam nil oran jiray Zubayr oo reey man ahaa dadkii kontomaadkii tacliinta u halgami jiray ahaa soo gaabinay dadkii aqoonta u halgamay ahaa oo aynu ognahay يعني dadka aqoonta u halgama waa dadka ummadaha jahliga ka saar sida inagaba ilaahay naxariisanaha siiye xaajigeeni weynaa ee aqoonta xilligii burca loo soo bedelay uu warqad buu ii soo qoray waxay soo qoray buu ii soo qabay hay warqad ayaa soo qoray Yusuf Ismaaciil Samatan wuxuu u soo qoray Yusuf حاجي آدم ومركب برعي سولدي وهري وحكي دقيقة وحوق صوت قري آية القرآن عبا شاهي إني دعوت قومي ليلا وصورة النوح نبي النوح أشكتوني إني دعوت قومي ليلا ونهار فلم يسلهم دعائي لا فرار وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار وحوق صوت جوابي فاصبر